So can you? Janis mau kalian? Diyaar iska jira. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته daawadayaal iyo dhegeystayaal ba waxaan idin leenahay kulanti wacan oo wanaagsan waa barnaamij gaar ah oo aan ugu magac darnay doorka suxufiyiinta iyo waqtiga dagaalka oo ay caawa marti inoogu yihiin suxufiyiin Soomaaliyeed oo kala ah gudoomiyaha ururka isu taga suxufiyiinta Soomaaliyeed Daahir Cabdulle Calasow oo dhinacayga midig fadhiya iyo weliba Cabdisalaan Yuusuf Guuleed oo isagana ah nin saxaafadda iyo cilmiga sociology-ga bartay oo ku takhasusay labadaba caawa waxay nagala qayb qaadan doonaan barnaamijkeena aan ku eegi doono doorka suxufiyiinta iyo xilliga dagaalka waxaan leeyahay labada suxufiyiinba kusoo dhawaada TV-ga GBC ee magaalada Muqdisho daawadayaal sida aan la wada ogyahayba waxaa jirta in wadanka uu marayo marxalad aada halis u ah iyadoo dagaallo ba-an ay maalmihii ugu dambeeyey ka soconayeen gobolkaasi Bay oo dagaalkaas oo u dhexeeya midowda maxkamadaha islaamiga ah iyo weliba dhanka kale ciidamada Etoobiyaanka ee kusoo gardarooday gudaha wadanka Soomaaliya haddaba barnaamijkeenan caawa waxaan ku falaqeyn doonaa aniga iyo weliba suxufiyiinta ila fadhisa kaalinta kaga bannaan suxufiyiinta Soomaaliyeed ka qayb qaadashada marka arrimo noocan oo kale ah oo dagaal ay ka jiraan dalka weliba ay ka shaqeeyaan amaba ay u dhasheen iyadoo la ogyahay in farqi weyn uu u dhexeeyo qofka journalista ah marka uu ka shaqeynayo waddan uusan u dhalan iyo marka uu joogo uu ku sugan yahay waddan uu u dhashay oo isaga uu kasoo jeedo labada shaqana waxaad u malaysaa in ay kala duwan yihiin marka la eego qaababka lasoo darsiisa ama waxyaabaha lasoo gudboonaan kara qofkaasi journalistaha ah haddaba caawa aniga iyo saaxiibaday Socdaal iyo Guuleedba aynada Calasow iyo Guuleedba waxaan falaqeyn doonaa doorka amaba kaalinta suxufiyiinta iyo weliba waqtiga dagaalka sida midka iminka uu ku sugan yahay wadanka Soomaaliyeed ugu horeyn waxaan siinayaa saaxiibkay Daahir Cabdulle Calasow oo dhinacayga midig fadhiya isaga in uu barnaamijka furitaankiisa uu qaato waa maasan tahay runtii aadan ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo barnaamij noocan oo looga hadlayo doorka suxufiga marka la yidhaahdo baahan tahay in si weyn loo gorfeeyo baahan tahay iyadoo uu joogo Cabdisalaan oo expert ah marka dhinaca loo fiiriyo journalismka ethics ka sheekayn doono aniga haddii aan ku hormaro runtii wariyuhu waa dhexdhexaad haddana dhexdhexaad ma aha maxaa loola jeedaa waa dhexdhexaad haddana dhexdhexaad ma aha wariyuhu waxaa ka mamnuuctay qof kastoo muslima dee qof kasta aan been sheego marka laakiin maxau haddana sheegayaa wuxuu sheegayaa wixii jiro sheegayaa wixii jira qaabcinka u sheegayaa marka hadda aan tusaalahan kaga soo qaado ood fiiriso dagaalkii Vietnam maraykanka wuxuu ugu jabay media ugu jabay waayo waxay dadku ka fiirsanayeen maraykanka gudihiisa telefishinka iyadoo la baabi'inayo genocide-kii uu socdo marka dadku kaceen kasoo laabtay waa la bushkiday maxaa ka dib dhacay xilladii ka dambeysay waa la ogyahay telefishinada dalka maraykanka waxay tabanayeen qaabka u shaqeynayeen waa la ogyahay marka waxaan fiirsanaa jeer marka Baqdaad meelaha laga hadlayo dagaaladii Ciraaq lagu qaaday Afghanistan wariyaha Maraykanka ah ee saaran taangiyada Maraykanka qaabka wuxuu soo tabanayay in one side wuxuu soo tabanayay waayo haddii uu yiraahdo waxaan soo tabanayaa marka waxa jabka soo gaarayo kalanta Maraykanka dadku disappointed ku noqonayaan ku niyajabayaan dagaalku isla markii kacdadu inay la karo marka horta waa saxo waxaan noqon karnaa marka samicadaha loo adeegsado dhiirigelinta samicadaha loo adeegsado kicinta bulshada taa waan noqon karaynaa laakiin kuma qasbanaan karaynaa marnaba inaan been sheego waa tahay aad buu u mahadsan yahay Daahir Cabdulle Calasow ayuu ahaa kaas iminkana waxaan siinayaa saaxiibkay Cabdisalaan Yuusuf Guuleed bal isagana in ra'yiga ama doorka ugu horeeya ee saxaafadda
ama iyo suxufigaba xilliga iminka waddanka uu ku jiro oo kale marka xaaladdu ay noqoto waxyaabaha la gudboon. بسم الله. السلام عليكم. journalistaha shaqadiisa iyo waqtiga dagaalka. journalistuhu waa profession waliba aada u muhiima. waqtiga dagaalka marka lagu jiro sida uu saaxiibkay sheegay, markii uu qofkan joogo waddankiisa iyo markii uu waddan kale joogo labay kala tahay. qofka journalistaha caws ma ahan, buurna kama imaanin, baddana kama soo caarina, waxuu ka yimid dal iyo dad uu leeyahay, ehel uu leeyahay qofku. waddanku markii uu dagaal galo, ninka xabadda sida iyo ninka saxaafadda ama joornaalka qoraya ama kaamarada report garaynaya ama telefishin fadhiya, nin kasta waddanku wuxuu ku leeyahay mas-uuliyad. mas-uuliyaddiyaa marka qaybsan, waxay u qaybsan tahay mas-uuliyaddu. dagaalka wuxuu kala yahay dhowr nooc. mid waa mid xabadeed, ama madfac ha noqdo, ama bom ha noqdo, ama xabad yar ha noqdo, waa mid xabadeed. midna waa mid maskaxda ah, midna waa mid sawiro ah, muuqaal. oo inta badan midka maskaxda waxaa lagu kaalmeeyaa sawirada. sawirka marka laba kala ah. mid waa mid qofka marka soo bandhigto isla markii qofka dareemi karo, dhihin karo war sawirkaas alla ilaahay waxaan ujeedaa nin dhaawaca, nin dhintay, taanga cararaya, oo qofka dhihin karo. iyo mid saadaal maskaxeed oo qofku aad sawirka u cabiraysid oo leedahay sidaanay wax u dhaceen, kasoo qaba nima raadiga kaa dhagaysanaya ma joogo meesha inaad u sawirto sawir maskaxeedkaas. sawirkaas wuxuu ka awood badan yahay ninka xabadda ridaya. dabcan ninka xabadda rida waa loo baahan yahay, haddaan xabadda la ridin waa adaa lagu imaanaya, wax ma sheegi kartid. laakiin ninkaas wuxuu hadalka gaarsiinayaa nimaan xabaddii meesheedin joogin, nin duqa, islaan, canug yar, qof kasta wuxuu u sawiraya sida waxu dhacayaan. wariyuhu ma yahay dhexdhexaad. wariyuhu dhexdhexaad maaha, mana noqon karo dhexdhexaad. dhexdhexaad wuxuusan ka noqon karin marxaladda asaga naftiisa ah iyo cid kale. dhexdhexaad kama noqon karo. waddankaada iyo dal kalena waxay yihiin naftaada iyo cid kale ayay noqonayaan. laanno markii waddankaadii lagu soo xadgudbo, arrintii waddankaada iyo dadkaada iyo dad kale udhexaysa waxay noqonaysaa naftaada iyo cid kale. wuxuu leeyahay role ah marka inuu ciyaaro, inuu matalo naftaydiiyaa lagu soo xadgudbay iyo cid kale. cidda kale waa maxay? waa wixii waddankaada wax u dhibaya. that is his role. soomaaliya hadda maalmahan waxaan maqlaa dowladda kumeel gaarka ah iyo sida la sheegayo labada kooxood dadku waxay ugu baaqayaan in labada dhinac xabadda joojiyaan. there's nothing called laba dhinac. waxaway Soomaali oo dagaalamaysa. weliba waxaan aaminsanahay terminology-ga ah maxkamadaha in laga bedelo la yiraahdo shacabka Soomaali. this is revolution. waa kacdoon. marka la yiraahdo war kacdoonkan dadka Soomaaliyeed ay wadaan, waxaa dagaalamaya dadkii Soomaaliyeed oo hogaaminayaan maxaakiimta islaamku iyo waxaa cadowgii soo jireenka ahaaya Soomaaliya oo xabashida ahay oo helaya kooxa yar yar oo laysan u siinaya dadka Soomaaliyeed in la dilo. that is the terminology lagu dagaalamayo. waa role ninka wariyaha uu leeyahay and shouldn't be dhexdhexaad. nothing called dhexdhexaad. laakiin waxaa jira anshax haddaan kusoo noqdo saaxiibkii Cabdisalaan Guleed. saxaafadda waxay leedahay ethic ay leedahay ama anshax ayay leedahay. haddii aad tahay suxufi si kasta oo loogu soo xadgudbo, haddana haddaadan noqon taas micnaheedu ma noqon kartaa in wax aan jirin aad sheegto marka? for example haddii tuug gurigaada soo galo ama cid tuug u soo galo lagu yiraahdo warka keen, dhexdhexaad ma noqon kartaa? ama noqon kartid. su-aasha anaka jawaab waxay tahay tuugu guriga ma lahan, wuxuu ku soo galay si qalada. wax kasta oo gurigaas ka dhaco tuug waa ku qaldan yahay. from dadkii loo soo dhacay aad ka hadlaya marka waxaa leedahay tuugii waan soo dhacay, alaabuu cidda ka qaatay, islaamow daqray, gurigii albaabka ka jebiyey, markuu sii baxaya cunug yar oo ku istaagay. waxaad sheegaya nin soo xadgudbay oo dhib, wax kastoo isagu geeyo waa dhib, wax kastoo cidda loo geeyana loo geystana waa qalad, soo ma? so from ciddii side markaas adiga joogtaa wadada markii lagu soo xadgudbo wadda waxaa soo cid guuleystay ay sheegaan wararka lagu kalsoon yahay. yani an example aniga hadda qofaan tirin siinaa mala, laakiin yani roolka tusaale ahaan waxaa guuleystay sida la sheegayo, waxaa la dilay intaas sida la sheegayo, waxaa la sheegaya taangiyada ay wataan inay yihiin kuwa duqa oo saddex kamid ah maaragtay ciid maaragtay ay ku socon waayeen, laba taangiyo madfaco la sheegay, waxaa la sheegay kuwa duqa inay u dhici waayeen, diyaaradtooda waxaa la sheegay inay kici weyso, dhaawac qaadi weysay. that is the morality. qofka Soomaaliga wuxuu dareemayaa nimanka naga soo horjeeda waxay wataan inay shiid yihiin, ever yihiin. laakiin dad tirado diyaarado lala yaabay oo kugu dambeeyay Mareykanka oo 28 maanta ciidankeena kor maray, ciidan dabaabada to 3,000 lagu qiyaaso oo taangiyal jiidanaya haday horteena soo maray, ciidankeena qoray suugahay wataan waa dhici waay. that is the absolute ridiculous.
هي waxaa tiri waa wax lagu maadsado ama lagu qoslo sababta ridiculous Ha. haddii marka waxa aad sheegayso ay jiraan kaba soo qaadba warka aad sheegayso waa dhab kaba soo qaad waxay haystaan hub casri ah wataan ciidamada cadowga ah waddanka soo weeraro kale dhanka Soomaalida waxay haystaan hub aan saas u xoog badnayn haddii warka saas uu yahay aad dad u sheegayso uu yahayba in aad sheegto oo suuyaha u tiriso maxaa diidi kara right waxaad diidayaan ku sheega markaad tiraahdo dadka aan la dagaalamayno waa naga hub badan yihiin waa naga awood badan yihiin dadka dhegaystahaada muxuu dareemayaa sawirka dhegaystahaada muxuu yahay wuxuu yahay in cidan lagu dhicin lagu aadino ay kaa horeyso qatar ay ku jiraan hooyo kasta cunugeedia meesha jira kaan jirina ka jiray u duceynaysaa qof kastana wuxuu isleeyahay askariga dagaalamaya waa derbiga aad ku gambanaysid haddii liya derbigaad ku gambanaysin biyaa lagu shubay taankiana kusoo socda qof kasta argagaxuu dareemaya waxyaabaha aad marka runta ka sheegayso tan runtii tii laga sheegaya ma hadduu wato diyaarado oo markii la afuufo dadka afuufay hadduu wato biyaha diisaan loo tuuro ummadda haraqinay adiga ninka sheegaya mati waxaa sheegaa ninka iska lahay kuwan ayaa sheegaya adigu waxaad sheegaysaa wax kasta oo basiid ku ah ninkaas dhexdhexaad waxa laga noqdo tanu ma ah arrintii tuuga iyo cidda usoo dhacay way arrinta marka waxaad ka wadaa haddii waddankaaga lasoo galo journalista waa in noqdaa mid bias ah oo dhanka u janjeera bias maahane waa inuu noqdaa nin waddan leh waa inuu noqdaa nin waddan leh mas-uuliyadda ninka xabadda ridayaa saaran oo hadala imageka oo sawirayana waa inay noqotaa image marka waa nin dagaal kula jira waddankii kale oo waddankiisa matalaya exactly lanna wariyaha ethiopianka muxuu dhahaa ma dhaha maxaakiimtu niman awood badan oo lala yaabo oona gambanayn oo askartii gudaha usoo gelaya oo askarta kuwana qaqabtay oo yacni hubka aan taangiga madaxa ka gela makulata inuu dhaha ninkaad sabab absolutely ma dhahay laanna ciidankiisu la dagaalamay markaas hadduu yidhahda 2 minutes kabacdi waa la xiraa anigu waa xiri lahaa hadalku wuxuu yahay journalistaha waddankaada gudihiisa markaa tahay yes waxaad leedahay waxaa isqabsaday dhexdhexaad ka noqo arrinta laakiin markii waddankaada lagu soo xadgudbo waxaad wadataa microphone waadna dagaalamaysaa waxaad wataa kaamarad waad dagaalamaysaa wuxuu wataa qoray wuu dagaalamaya laakiin afhayeenka waad ka duwantaa dowladda laakiin waxaad ka dhawaajisay in la xirayo manaha marka ma u muuqataa amuuriyaha ma la dhihi karaa waxyaabaha waddanka uu daacadda ugu noqonaya markaas waxaa kamid ah cabsi uu ka qabo in dowladda ama maamulka uu wax ka sheegaya cabsi uu ka qabo inuu wixii u qariyo si aan loo xirin ma la dhihi karaa wariyaha hoosta ka maran ee aan shaksiyadda lahayn ama aan dareemayno roolkiisu wuxuu yahay hadda wariyaasha Soomaalida inta badan waxa la yiraahdaa professional ma ahan ama yani tababar dheeraad ma aysan qaadan xagga khibradda markii looga hadlay waxa la dhihi karaa wariyaha marka inta badan waxay ku soo celiyaan reer galbeedku wariyaha dhexdhexaad waa inuu noqdo saxaafaddu waa dhexdhexaad saxaafaddu waa been adduunka wax dhexdhexaad uma jiraan qof aan la soo sawiray BM aad weyn oo xabadiisi socdaan oo ridaya laba nimo meeydoo gar loo ka sokeeya ciidamo hoostooda ku yaalo leeyahay ciidamadii bay daba difaacayay way taangi dhinac ka taagan taangiga xabashida ku soo qoray qoryo kale oo artifaafiyaha mal dhinacaana safan oo leeyahay ciidamada xabashida yaad asfataas u sameeyay yaad xasiisin u sameeyay muwayta la dagaalamayna dadka la dagaalamay waa ku qalaasana saaxiibka guud waa ku siinaya waxaan siinayaa saaxiibkay daahir cabdulle calasow adiga ma aaminsan tahay daahir sida uu uga dhawaajiyay saaxiibka guuleed waa ku qalaasana waayo waxaan ku aaminsanayn waxaa jira angle kale ama jiro kale oo suxufiga uu door fiican kaga ciyaari karo xagal kale intaa jirto ana ma qabo in shacabka la masjid gareeyo marka la yidhaahdo ma wataan taangiyo xuna wataan oo bilaash waayo saas wada tiraahdo dee nimanku waa soo socdaan laba gorab oo ku imaanayaan laakiin meeshaan maxay yahay hadda amba tusaale soo qaato maxkamadda rag baa qanaysa maanta isla joogo meelkasta joogo ay leeyihiin cid kale ma ogole ayaga unbay ha ninkaan garku saa ahayn waxba ma ogola hoosaa iska xamaraya aan isweydiine ma maxkamadaha una Ethiopia la dagaali karaya ciday wadato mise Soomaaliya la dagaal karayso jawaabtu waxay tahay Soomaaliya la dagaal karayso maxaa la mataqaanaa marka wariyuu doorku ciyaar inay ahaato si Soomaaliya isu keen lahayd inuu yiraahdo war jiritaanka Soomaaliyeed yaa loo baahan yahay in la badbaadiyo ya tusaale ahaan hadda ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ugu dambeysay taariikh ahaan waxay ahaayeen siyaad barridaay 350,000 oo askari ahaayeen 50 had dhintaan 100 dibadaha aadaan 100 beeshitaan noqdaan maxaa soo boqolka askaradii la sii ka waran wariyuu sheegay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya dalkiisa uu ka hadlo maxaa saas way ciidamada uu wacyigelin u sameeyo marka ciidamada hadii boqolka ardayda la siinayo la siiyo boqolka ciidamada qaranka ah maxay sameyn karayaan haddii la shacabku tani waa dhibaato lagu soo wajahan ay soo kala xarin waa awaarnaas kale waa wacyigelin waa shacabka odayaacaya laakiin haddii ayadoo maxkamaddu ula dagaalayaan aad tiraahdo nimanku waxay ay wateen yaa la soo sawirin mutaqaana inta yar maxkamadda laga dil ma ah Soomaali weyn waxa la rabaa in laga dhaadhacsiyo shacabka jooga Baydhabo Ethiopianku muxuu yahay qorshiis was agenda Ethiopia waa in la soo saaraa miiska
wariyuhu inuu ka sheekeeyo taas waay laakiin ana ma qabo wariyuhu in wax jiro oo daboolo iyo in dhacdooyinka noocaasa way dhici kartaa in qaar waxyaabo waaweyn markay dhacaan inuu asturo laakiin in misleading dadka lagu sameeyo oo qofku iska hayka ogaad ama Ethiopia maanta afar taangiyo halaasnad watay ee laga burburiyay afartii midna ciida ka gashay oo la wasaxda ma qabaan doorka oo saxaafka sama maqaan waxa maqaana inuu wixii jirna uu sheego dadka la awaarnad u sameeyo uu sheego maxaa or taariikh ahaan la soo fogaban maxaa u dhaxeeyay Ethiopia iyo mataqaana Soomaaliya maxay maxay horta dhibaato ku dhacday maxay hadda muxuu damacsan yahay Abdullahi waa nin caynkiya يا علي محمد جدي قرب يكون رئيس مغل كيس يا هم حوها يا حسين محمد قربو سياسة سوقع سياسة ده قربو سوقع حتى الشعب يسوي يرتان تاجرين سوكم لها تاجرين شدي توبي روان وأنا كبرنا بحنا وحاول سكر تأفر تاجرين شيء صار هاي وصير كأنه وأنا وصلت تام مجال العاصمة حاجة صار هاي وصل أمريكا صومالي واحدا وحاول ابنه كان الشيخ شريف وكالته نقول الشريف حسن وكاله والعدي سياسي ciidamadii shisheeya haddana muuqsoo yimid taas lafteeda waa laga hadlaa waa qodob ahaan in laga hadlaa marka awareness u baahanta adiga waxa true adiga haddii kalanto nin extremist noqonaysaa ya qofka ku fiirsanaysa lafteeda hadda ninka maxkamada u sarreeya xasan aweys marka aniga aan caawa asaga u sameynaa ide oo fiirsanayo interest badan kuma aha inaan sayidkiisa ogaana laakiin waxaan rabaa inaan dhaho maxkamaduhu maxay horta ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kaga maarmayaan ya maxkamaduhu maxay kaga maarmayaan maxkamaduhu maxay Soomaaliya kaga maarmayaan ya maxaa la isku koobayaa awoodaha baawarka وإن أقوالنا الهراء وإن فنانين الله فصحى إن يسميها وعيقلين فنان دوري كل هذا وإن لقى الله فنانك يا العاصي يا أوي نيكي دوف كيون بيجرد دويسا ما كان مغش بقالد وإن قلب قربانته حل ركبات ما كانش دويني كأي ولا قرتك يتوبيا كل مجهو كريه حطوا لقرط دقالي ماشي جيت كتاعين مجهو كريه حتى حاسة على المتجر كريه يا لكن مركل اللي فهمسيو يوم كان واني مساس سيجار كي نعبي كي سيجار كحوسله سيجار كحكم كلا الصعدة والله يا كي كلا جات كحول جات كحكم كلا الصعدة mid kale oo meel yar oo buula deganay wuxuu ku leeyahay war meesha hadii nimanka qabsadaan halka xogga hore waxayna sababta dadka waxaa umar dadtaan 16 sano kadib inuu maamulka dhigo laakiin hadda waxa la taagan xaalad qatar dalka xaalad xun ah soo wajahday waxa qatar loogu jiraa jiritaanka Soomaaliya in lunta ya loogu jiraa jiritaanka Soomaaliya ma difaaci karayaan isbahaysi gooni ee waxa difaaci kara Soomaali weyn waxa tusaale ku soo qaada waxa dhacayso kaleeto inay hambaliyo soo jeediyeen Somaliland markii maxkamaddu ay guuleysteen oo warlordski laga saar magaalada waxay dhahay waa hambalayna islaam maxkamad islaam laakiin maxaa dhacday maalin kadib in qor lagu jibiyo laado Soomaaliland waan tagaynaa ma dhawna qabsanaa maxaa ka dhacay marka propaganda fiiri wax ka socda internetka kale marka waxaan qabaa walkay gulida ku diidana waxaan rabaa in wacyigelinta si dhab loo sameeyo de wixii jiro xaqana ala qarin waxaad ka dhawaajisay macnaha in waxyaabo badan ay jiraan tashuusha horta maxkamadda islaamiga waa bini aadam waa qaldami karaa lama dhihi karo 100% waa sax yihiin laakiin markii uu jiro cadow dibadda oo ka baxsan ayaga ka shisheeya ka xigi jira ma quman tahay in ayaga wixii ka qaldan toosh lagu ifiyo mise waxaa haboon in marka hore waxaas kale la iska xaliyo oo aan isku soo laabato inta kale bulshada Soomaaliyeed waxaa si loo xalnaafto marka hore wax si loo xalaas la iska rabaa iyadoo Itoobiya soo joogaan intaasoo maxay reebay dhabooda waa joogaan waxay leeyihiin mataqaanaa ani madaxweynahay aniga ra'iisul wasaaraha xitaa أنا وحنا كرا محكمة بنقول سمي دولة بلا يصير فريدة يا مرة يا هدي نيوشيشن كقاب كسر بيقول جهد يا محفوظ الشيء طلعي باور كوس كيرا اوكي لما هدي دولة دولة فضل هل كي جوتك البيضاء انتو بياك هدي لصهر يا ريو او وعي جرينت الله وضل ولا قبص ما انت تذكر لوتا حضور جوجو كوبا كلاكس ما جوهر لو تجي كوبا كلاوتا ويسوق هبنا شيء كذا يا عبد الله يو حكومية شعب حكومي سوق لكن وحي كنت رجلي وحوها أنا واحد لقاه ارتجابه من هو استجابه وحوها إسفلنت أنا مركز طبعا واحد شركي فشلي خرطوم إن وجهي سدحت إسقي بعد وحوها إن ظاهر إن لو إذا محكمة إن إسباهين أم إسفلين أي وضع وريها مركز سدابة مركز وريها جوات صعبة مرنبا هدي وشيرو وحلي ديكو حكومة السناوي حفص جاي كان أما قلت كاي كان واسكا جروا وحنا قلنا ورطة marka media adduunka laga hadlo kaalinta labaad ka gashay Ethiopia ma kula